aniga oo sujuudsan ayaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryi jiray ducadii Nabi Sakariye ee ahayd rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayrul waarithiin. Ilaahayna wuu iga aqbalay. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaad walaalaha qaaliga, walaalihii hore ila socday iyo dhammaan walaalaha cusub ee hadda gadaal iga soo biiri doono. Janalka waa janalkiini, marxaban ayaan idin leeyahay, qalbi furan iyo gacmo furan buu waan idinku soo dhaweynayaa walaalaha qaaliga. biidni raxmaan waxaan ka hadli doonaa maanta uu toobigeena yahay sida aad kasoo aragteenba isku baraarujin salaatu tahajudka iyo qisaska laga arkay dadka ahlu salaadka ah oo waliba salaadu way kala duwan tahay. salaatu leylka habeenkii usoo kaca faa'iidooyinka iyo fadliga iyo barakada iyo nicamka ay ka heleen iyo faa'iidada iyo fadliga ay leedahay ayaan ka wada sheekaysan doonaa insha Allahu. aadna uga boogan doontaan toobigeena maanta ama fiidiyogan aan hadda afurtay biidni raxmaan. aan u guda galno horta ciwaanka oo ah waa maxay salaatu tahajud ama salaatu leyl, qofba sidoo u yaqaano. salaatu tahajud ama salaatu leyl waa salaad la tukado habeenkii hurdada kadib inta u dhaxayso salaada cishaha iyo salaada fajarka. waa salaad sunno ah oo aad iyo aad u fadli badan, waxaana laga helaa khayr aad iyo aad u weyn. daba marka aan isla fahanay micnaha iyo ujeedada laga wado salaatu leyl ama tahajud, waa inaan u gudubnaa faa'iidada ay leedahay iyo fadliga laga helo. faa'iidada ugu horeysa ee laga helo salaatu tahajudka waxaa lagu gaaraa darajo aad iyo aad u sareyso. waxaan u daliilah aayadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة إسراء آية 79. faa'iidada ama fadliga labaad ee laga helo waxa waaye in ducada tahajudka aan la celinin. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri rabbigeena waxa uu soo degaa samada koobaad habeenkii markuu saddex qaybta ugu dambaysa yahay. waxa uuna yiraahdaa yaa i baryaya oo aan u aqbalaa, yaa i weydiisanayo oo aan siiyaa, yaa dambi dhaaf i weydiisanayo si aan ugu dambi dhaafo. xadiis ku yaalo saxiixul muslim. qodobka saddexaad ee ah faa'iidada iyo fadliga laga heli karo tahajudka ama salaatu leyl. tahajudka waxa uu nadiifiyaa qalbiga. qofka si daacad ah u tukada tahajudka qalbigiisa wuxuu dareemaa xasilooni, jacayl Ilaahay iyo iftiin iimaan fara badan ayuu dareemayaa qofka tahajudka ama salaatu leylka mar walba intuu si daacad ah u tukado. qodobka afaraad ee ah faa'iidada laga helo tahajudka waxa uu astaan saalixiinta u yahay. nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri salaada ugu fadli badan kadib salaadaha waajibka waa salaada habeenkii ee ah salaatu leylka. waana xadiis uu wariyay Muslim. qof kasta oo caadeysta salaatu leylkana waxa uu ka mid noqdaa kuwa uu Ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala. ugu dambeeyo oo aan rabo inaan kusoo koobo fadliga iyo faa'iidada salaatu leylka ama tahajudka leedahay, waa salaada dadka guusha rabo iyo jannada ay tukadaan. saxaabada iyo saalixiinta waxay ku dadaali jireen tahajudka si ay u gaaraan rabitaanka iyo jannada raxmaanka. annaga oo ah dadka zamankan ku nool oo ka cibaado yar oo ka alla cabsi yar dadkii iyo saalixiintii noolaa xilligii nabigeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam ee acmaashooda aad iyo aad u wanaagsaneed oo qulubtooda ay wanaagsaneed hadday ku dadaali jireen salaatu leylka iyo tahajudka, waa inagana inaan sii laba jibaarnaa saddex jibaarnaa oo aan aad iyo aad ugu dadaalnaa biidni raxmaan. salaatu leylka waa furaha guusha, waa furaha khayrka, waa furaha horumarka. wax kastoo aad u baahan tahay haddaad soo kacda habeenka xilligiisa dambe oo aad Ilaahay weydiisato waa lagu helaa salaatu leylka. waxaa kaleento aan jeclaystay insha Allahu inaan soo raaciyo 3 qiso oo salaatu leylka ku saabsan oo laga arkay salaatu leylka. qisadeena koobaad waxaa ka sheekeynaya wiilkan waxa uu leeyahay waxaan ahaa wiil ay ku xariiraan famil reer iyo dad. waxa uu yiri waxaa isoo kortay culeys fara badan, waxaan qaatay deymo aad iyo aad u fara badan. deymihii kadibna waxa aan waayay meel aan ka gudo ayuu leeyahay. waxa uu yiri waxaan joogteeyay markii dambeento oo aan bilaabay inaan salaatu leyl aan tukado oo habeenkii tahajud aan usoo kaco oo aan alla baryo. kadib waxa uu yiri markii aan tukado oo aan alla baryo waxaan mar walba ku celcelin jiray ducadan ah
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. ducadaas ayaan ku celcelin jiray ayuu dhahay. alxamdulilaah muddo isbuuc gudaheeda ilaahay deyntii wuu iga guday, meel dhow ayuuna iisoo dhigay risqii, deyntina wuu iga guday alxamdulilaah, faraj weynna ilaahay ayuu ii furay ayuu leeyahay wiilkani. labaadna waxaa ka sheekeynaysa ee laga arkay salaatuleylka iyo tahajudka. waxa ay leedahay gabadhani: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ahaa haweeney la qabo muddo 8 sano ah. waxay tiri 8daas sano wax awlaada ma dhalin, isbitaallo fara badan ayaan ka daba wareegayay, qarashayaal fara badanna way iga baxeen. balse waxay tiri ilaahay subxaanahu watacaala 8 sano kadib ayuu igu guuleeyey inaan uur yeesho oon awlaad dhalo. sababta oo liajli ilaahay igu siiyana waxay tiri waxaan joogteeyey salaatuleyl iyo istighfaar. waxaan sameyn jiray mar walbeenta inaan sujuuda ku duceysto ducadii nabi sakariya ay ahayd: rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayrul waarithiin. alxamdulilaah, ilaahay wuu iga aqbalay ducadeydii. muddada 8 sana ubadkii aan raadinayay oo qarash iyo xoolo iyo fikir iyo walwal igu abuurtayna si sahlan ayuu ilaahay igu siiyey. uur ayaan yeeshay, ilmo qurux badan ayuu ilaahay igu arsaaqay. alxamdulilaah, waxay tiri waxaana usoo sheergareeyey oo aan u sheegay qisadeyda si ay walaalo badan oo quus gaaray ilaahay subxaanahu watacaala ha ka quusanina. tukada, ilaahay usoo kaca, gacmaha u hoorsada. isaga ayaa bixiya nicamka, isaga ayaana arsaaqo, isaga ayaa awlaada bixiyo. kuna duceysta ducadan: rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayrul waarithiin. waa ducadii badashay nolosheyda. salaatuleyl iyo istighfaar ayaanan la imaaday ayay dhahday. waxaa ka sheekeynaya wiilkan. waxa uu leeyahay: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah, dhameeyey waxbarashadii sare. waxaan rajeynayay markaan ka baxa jaamacadda in aan horey ka heli doono shaqo, balse muddo 3 sano ah ma aanan helin wax shaqo ayuu dhahay. oo waxaan baadigoobi jiray maalin walbeento oo aan u labisan jiray si aan shaqo usoo helo, balse muddo 3 sano ah wax shaqo maanan helin. waxa uu yiri markii dambe waxaan bilaabay inaan habeenkii salaatuleyl usoo kaco, ilaahay ku baryo sujuuda si uu ii siiyo shaqo aad iyo aad u wanaagsan. alxamdulilaah, ilaahay ducadeyda wuu iga aqbalay. waxaanan helay ayuu dhahay muddo 3 sano ah kadib shaqo mushaar aad iyo aad u fiican ah, darajadeeduna ay sareyso, reerkeyga iyo ehelkeygana ay ku farxeen. wax badan aan ka qabsaday alxamdulilaah. qof hadda horumar gaaray, guursaday, oo waxaan noqday xajka aaday, shaqaystay, ganacsiyo badan furtay. alxamdulilaah, guushaasna waxa aan ku helay ayuu leeyahay wiilkan. salaatuleylkii aan usoo kaca habeenkii saqda dhexe markii ay dadka hurdayaan, ilaahayga aan baryo ayaan sacbada u hoorsaday. alxamdulilaah ayuu leeyahay. walaalaha kalena waan ku dhiirigelinayaa. walaalahayga qaaliga, qisaskeenii iyo isku baraarujintii tahajudka iyo faa'iidooyinka laga helo intaas ayaan rabaa maanta inaan kusoo gabagabeeyo. waxaan jeclaan lahaa haddii aad ka heshay ama ku dhiirigelisay qisaska iyo barnaamijka aan soo gudbiyey maanta inaad like noo saarto, una sii sheergarayso walaalaha kale aad khayrka la jeceshahay. jalankana aad subscribe ku xirato si aad u hesho maalin kaleento qisas iyo barnaamij kuwan ka wanaagsan biidni raxmaan. soo dhawaada oo janal kor u qaada. jasaakumullahu khayran. qof walba inta meeshuu ka ooman yahay allah ka oontiro. bogtadeena iyo baahideena biniaadanka ilaahay ma tusiyo, gacanteenana tii sarreysa ilaahay ha ka yeelo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulminin. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa toobatan nasuuxatan qabla almowt. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembi dhaaf, maqfiro, dunuubteena tii hore tii dambe, mid yar midaan ognahay midaan ogeynba ilaahay inuu noo dembi dhaafo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu khayrka nagu sugo. allahuma yaa muqallib alquluub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. بندقنا إن شاء الله waxaan rajeynaynaa in laga aqbalo oo rajadeena iyo himiladeena iyo guusheena ay maanta ay noqoto maalintan guuleysan lahayn biidni raxmaan. aan ku wada salina nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. astawdicukum allah alladhi la yudiicu wadaa'i. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fi amaanillah.